So those younger players have got to play without fear, but they've got to play sensibly, but they have to pose a threat, cause problems for Liverpool at the top of the field to really get everybody. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta joogtaan in soo booq maqalka raadiyaha ciyaaraha dalka ee Golf Mid soo gaarayo. Waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. waxaad ku soo dhawaataan ciyaarta weyn ee Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester waa ciyaarta ugu weyn horyaalka wadanka England. waa mid ka mid ah kulamada ugu shidan ee caalamka marka la fiiriyo laga ciyaaro. si kastaba ciyaartan waxay ka imaan doontaa garoonka weyn ee Old Trafford. garsooraha Ingiriiska ah ninka lagu magacaabo Michael Oliver ayaa ciyaartan garsoore ka ah kaasoo if ku soo biiray 20 February 1985 waana 37 jir. wax walba waxaan ka bilaabi doonaa shaaxaha labada naadi kooxda kubadda cagta ee Manchester goolaha David De Gea, Diego Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Torreira, Malaysia, Christian Eriksen, Isaac McTominay, Antonio Elanga, Bruno Fernandes, Jadon Sancho iyo sidoo kale Marcus Rashford ayaa tababar Erik ten Hag uu ciyaartan ku soo bilaabay. dhanka ay tababaray Johan Klopp goolka waxa ugu jira goolaha Alisson Becker. waxaa marka la fiiriyay difaaca ay yihiin ciyaartooyda kale Andy Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, James Milner, John De Henderson, Hervin Elliott, Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo sidoo kale Luis Diaz. ciyaartan waxa ay marka la fiiriyay ay tahay mid uu garsoore ka yahay garsooraha lagu magacaabo Michael Oliver. garoonka weyn ee Old Trafford ayana saaxiibayaal ciyaartan ka imaan doonta anigoo Absalaan Cadaaya ayaa ciyaartaminaya. saaxiibkii Sharmaaka ayaa dhanka farsamada ka qaaben doona. markaan Janis fiican waa kana Manchester Rashford laakiin maya waa laga diiday mar kale. waa kana Bruno Fernandes meel fiican Isaac McTominay asaga heesa kubadda dib u soo furo markaan Red Devils ayaa saaxiibayaal baashaaleysa waqtigan bartan garoonka ee taala. United xisaabta ku dirso 12 kulan ee la soo dhaafay ee la ciyaarta kooxda Liverpool hal jeer oo kaliya ay adkaatay waxaana ahayd 2018. United waqtigan baashaaleysa garabka la soo saaray kubadda waa kana markaan Marcus Rashford asaga kubadda haysta. Virgil van Dijk ayaa waqtigan hortaagan waa kana markaan Bruno Fernandes waa kana Christian Eriksen siga kubadda haysta. Torreira Malaysia waa kana markaan Eriksen inuu ku qabta ayaa bil aan leed sida waqtigan muuqanaysaba. waa kana markaan meel fiican Antonio Elanga banaanka soo kubadda markaan waa ka Janis fiican waa kana markaan Janis fiican goolkii ka wada ciyaarta. United ayaa saaxiib yeel hoggaanka ciyaarta u qabatay Jadon Sancho ayaa u dhiibay hoggaanka. United ayaa saaxiib yeel hoggaanka u qabatay kulanka weyn ee marka la fiiriyo Old Trafford. Jadon Sancho ayaana si qurux badan goolka wada ee kooxda kubadda cagta ee Manchester waqtigan u leeyay. Man United 1 Liverpool 0. Composure, clinical. Manchester United 1, Liverpool 0, and the post-mortem is long and it is loud in the Liverpool defence. James Milner is saying there, come on, liven up. We haven't started this game at all. United deserve their lead. They've been the more progressive, they've been the more committed so far. And Jadon Sancho here does great. Lovely composure. I think James Milner is saying, as soon as I try and challenge him there, where's the next one behind me? I might be blocking the shot. Someone else now should be right in his face. Where are you? You're nowhere to be seen. And that's a tap-in for Jadon Sancho. Lovely control, lovely composure. What a big goal that is for Manchester United. He scored 50 goals in his time at Dortmund in Germany. There has been a criticism that rate has not followed. kooxdii laga shakisana ayaa ciyaarta weyn ee garoonka Old Trafford hoggaanka u qabatay mid aan laga filin ayaana shabaqa waqtigan soo gaaray waana Jadon Sancho. tan iyo markii Borussia Dortmund oo ka yimid waa markii afraad uu shabaqa waqtigan u gaaray kooxda kubadda cagta ee Red Devils. si walba ciyaartii Old Trafford Liverpool saaxiib yaal hoggaanka waa laga qabtay. waan ku sheegay bilaawii kulanka United ka shakin kuwaani waa kuwa ugu weyn ee Ingiriiska marka la fiiriyo loo daawan jiray zaman hore. taariikhda ayaana mararka qaar waxa ay tahay mid ka roon kuwa badan oo magacyo weyn oo garoonka marka la fiiriyo ku soo gala marka ay Janis heli karaan laakiin ugu dambeyntii banaanka ay u baxday kubadda. Jadon Sancho waqti badan kuma aysan qaaday inuu shabaqa kooxda Liverpool u gaaro. difaacii halisa badnaa ee kooxda Liverpool ee garoonka la soo gashana ee Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk iyo sidoo kale Andy Robertson wiilka yar ee Ingiriiska ayaa jabsaday waqtigan oo lagu diray gool fiiriyo waqtiga ay dhalayso ayaa la socon doona. waa kana markaan Torreira Malaysia oo soo saara kubaddaas madaxa lagu soo dhufto mar kale. Rafael Varane meel fiican kooxda kubadda cagta ee Manchester Janis kale waa kana markaan fursad fiican waa kana markaan Janis fiican waa ka goolkii labaad ee ciyaarta.
goolkii labaad ee ciyaarta United ayaa laba gool iyo gool eber ka dhigtay ciyaarta kulankii Old Trafford Red Devils goolkii labaad ee shabaqa watigaan galiyeen kubaddu caawiye ka Bruno Fernandes United 2 Liverpool 0 United's lead. Fabulous goal. Again, Liverpool a bit careless. Those centre halves high, holding high, he's offside. I think he looks like he's offside there. And that's obviously going to be checked. He's probably no doubt being checked. But wow, I mean, he looks so close to an offside call. The celebration's just been muted a bit at Old Trafford. There are no big screen replays here in this ground, but a little tinge of purple on the advertising hoardings lets everyone know that there is a look. Marcus Rashford's pace saw him through. The finish was wonderful. The green light there suggests that this will stand. Marcus Rashford does double Manchester United's lead. And Liverpool are in trouble now. Yeah, and if there's one player that United would have wanted to get that second goal, so not only try and settle everyone down in here and claim all 3 points. wax walba oo laga sheekay kooxda kubadda cagta ee Manchester iyo aamin laba gool ay ku hogaaminaysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool haddii aan ku sheegay marka hore shabaq inuu gaaray Jordan Sancho markaana waa Marcus Rashford ciyaartooyga ifka ku soo biiray 31 Oktoobar 1997 waliba 24 jir ah halka lagu magacaabo magaalada Manchester marka la fiiriyo ku dhashay ayaa goolkii labaad ee kooxda Red Devils siiyay caawinaad fiican oo ka helay ciyaartooyga lagu magacaabo Antonio Martial jaanis fiican ay Liverpool heshay laakiin ugu dambeyntii waa laga soo saaray kubadda markale waa kan United Bruno Fernandes meel fiican waa kana markaan Diego Dalot garabka la soo saaray kubadda Marcus Rashford waa control laakiin ugu dambeyntii ma aysan naqan markale waa kan garabka taala kubadda waa kana ciyaartooyga lagu magacaabo Rashford ugu dambeyntii banaanka la saaray kubadda Trent Alexander-Arnold ayaa banaanka u saaray Red Devils saaxiibiya laba gool ay ciyaartan ku hogaaminaysaa tani waa u farxad waa intii kubaddaas markale Janis Kona wala soo qaaday koornadaas markale madaxa lagu celiyo kubadda waa Elliot maya goolkii koowaad ee ciyaarta Liverpool ayaa saaxiibiyaal gool soo ceshatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool goolkii koowaad ee ciyaarta ayaa waqtigan la yimaadeen gool ayay tagtay saaxiibiyaal ciyaartii weyneed ee Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester waa laba gool cafan He's got to be careful, Bruno. He's on a yellow card, is he not? Yes. Bruno Fernandes is on a yellow. The tussle for the possession sums up the predicament now. Manchester United have done so well tonight, but Jurgen Klopp's side aren't beaten yet. No, they're not. And this is going to be a very long last 10 plus minutes. Does really well here. Fabio Carvalho gets that shot away. De Gea does brilliant to save it. But when all the red shirts are then on their heels, a little bit ball watching, Mo Salah. Mo Salah is now the outright top goal scorer for either of these clubs in games between Manchester United and Liverpool. He has now scored in 4. ciyaartooyga qaranka wadanka Masar ee Mohamed Salah ayaa saaxiibayaal soo celiyay mid kamid ah labada gool ee Liverpool lagu hogaaminayay ciyaartan waxaana kulanku uu ka dhigay laba gool iyo gool oo Manchester ay ku hogaaminayso waqtigan kani waa dhaliyaha ugu sareeyay ciyaarta weyn ee Manchester iyo sidoo kale kooxda Liverpool oo dhaafay ciyaartooy uu qayb ka yahay Steven Gerrard kuwaasi oo marka la fiiriyo ah dhaliyaasha ugu badan ee ciyaartan kuwaasi oo dhaliyay 9 gool kulamada la soo dhaafay Red Devils kana waxa uu ka gaaray shabaqa iska ilaa qof walba oo kulankan taariikhda soo ciyaaray Salah ayaana qofka ugu badan ee ciyaarta weyn ee Manchester iyo sidoo kale Liverpool gool ka dhaliyay rikooro badan ayuu soo duugay waqtigan waa kana markaan Janis fiican waa kana markaan laakiin maya isku day fiican oo sameeyay Christian Eriksen laakiin ugu dambeyntii banaanka ayuu ku dhamaantay kubadda 10 daqiiqo oo isla xisaabtan ah 10 daqiiqo oo Liverpool wax badan laga rajayn karo ayaa saaxiibayaal noqon doonta Cristiano Ronaldo ayaa ciyaarta lagu soo dari karaa waqtigan Marcus